الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دعوة إلى هانتيبا كنا سود هذا برنامج كي جناحسيجا وهذا أنا كلا كدعوة تلفزيون كقرن كجمهورية السومالان لعك بقي لا وصار بنانك هذا رجلو حبيب الروح لعك بقي لا وصار بنانك هذا رجلو حبيب الروح يا قوم على بقي وحضر بني وحضر بني barnaamijka ganacsiga iyo dhaqaaluhu isaga oo ka duulaya fariinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa inay noqdaan ganacsatada mustaqbalka ee waddanka waxay tahay inay niyadda ku hayno waxa mustaqbalka dhaqaalaha waddankeenu ku tiirsan doono inay tahay fikradaha ganacsi ee ururiyaan dhalinyaradu iyo sida ay u abuuraan fursado shaqo iyo horumarka kobca dhaqaalaha waddankeena oo bulshadu u horseedi doona barwaaqo waxaan soo jeedinayaa in bulshada qaybaheeda kala duwan aynu isugu tagno dhammaanteen aynu da'yarteena ku dhiirigelino sida ay abuuri lahaayeen fursado shaqo taasoo kow ka noqon karta ka hortagga aafooyinka tahriibka dhalinyarada ragaadiyey waxaan dhiirigelinayaa ganacsatada dalkeenna waxaan ku kalsoonahay inaanu abuuri karno ganacsiyo iyo fursado shaqo haddii aynu dhammaanteen gacmaha isqabsanno waxa uu u kuur galay isla markaana markasta u diyaar garoobay sidii uu dhiirigelin lahaa ganacsatada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland haddii ay yihiin kuwa soo kobcaya imika ganacsigoodu soo unkamayo iyo haddii ay yihiin kuwa horumarka ballaaran ku tallaabsaday ee ah shirkadaha waaweyn ee qarankan wax soo saarka faraha badan leh ka geysta barnaamijka ganacsigu isagoo oo ka duulaya dhiirigelinta ganacsiga waxa uu sidoo kale u kuur galaa soo saaridda waxyaabaha kala duwan ee dalkeenu hodanka ku yahay sidii loogu dhiirigelin lahaa da'yarta iyo dadka hal abuurka leh ee wax soo saarka ka qayb qaadan kara barnaamijka ganacsigu isagoo arrimahaasi oo dhan tixgelinaya waxa uu u kuur galay ganacsatada soo koraysa sidii uu u soo bandhigi lahaa ganacsigooga isla markaana u dhiirigelin lahaa si ay ku dayasho mug iyo miisaan leh u sameeyaan una hiigsadaan meel la haybsan karo oo qarankan taabagal ka dhigi karta horumarka uu ku taamayo ganacsato tiro badan ayaa dalkeennan ka jirta kuwaasi oo intooda badani markaaynu xaqiiqatan ka hadallo ay dalka gudihiisa ka unkeen ganacsigooga kuwaasi oo marmarka qaarkood marka aad u kuur gasho ama aad xogdoon ka raadiso habka ay ku aas-aaseen ganacsigooga ku tilmaamaya haddaba
waxaa muhiim ah in ganacsatada dalkan jamhuuriyadda somalilan mar kasta ku dadaalaan sidii ay ganacsi horumar leh u taaban lahaayeen balse fursadaha kale ee weli ka maqan ganacsatadeennu ay yihiin sidii wax soo saar dalka gudihiisa ah ay u samayn lahaayeen barnaamijka ganacsigu isagoo arrimahaasi oo tiro badan ka duulaya ayuu waxa uu ku kuurgalay sidii uu ganacsatada u kobcin lahaa una dhiirigelin lahaa wax soo saarkooda barnaamijka ganacsigu isagoo ka duulaya fariinta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu ku dhiirigelinayay ganacsiga iyo ganacsatada dalka iyo da'yartu sidii ay u abuuri lahaayeen shaqooyin amaba ganacsiyo yaryar barnaamijka ganacsiga telefishinka qaranku sidoo kale waxa uu barnaamijkani ku soo bandhigaa ganacsatada yaryar amaba ganacsiga waaweyn ee dalkani somalilan ka jira waxaynu ku eegi doonaa qaybteenan meherada Green Shawarma oo ka mid ah makhaayadaha amaba meheradaha laga cuno cuntooyinka fudud waxay meheradani furay dhalinyaro reer Somaliland iyagoo ka duulaya amaba dhalinyartani ay fikirkani ay ka soo heleen fikirada wadamada caalamka lagu abuuro ganacsiga waa meherad laga cuno cuntooyinka yaryar iyadoo qaybna ka ah kana qayb qaadata shaqaalaysiinta dhalinyarada Green Shawarma waxa ay samaysaa cuntooyinka kala duwan ee loo yaqaano soft foodka barnaamijkan ayaynu ku soo qaadan doonaa ganacsigaasi bal ugu horeyn aynu ku horeysiino maamulaha meheradani isagoo sharaxaya wixii ku kalifay iyo sidii fikirkani ay u heleen Mustafa Maxamed Abdullaahi managerka Green Shawarma marka Green Shawarma waxaan ku keenay waa wadamada carabta ayaa laga shaqeeyaa waxaan marka annagu qurbo joog baan imaaraadka qatar meel walba ka imanay waan iskaashanay markaas fikradan baa loo imanay shawarmada magaalada Hargeysa ka sameeyno marka alxamdulillah meherada si fiican u socotaa cuntooyin kala duwan shawarmada falafel chips digaagii iyo kumbriida sharaabiyadii baan haynaa qaybo kale ayaa jiray iyaguna aan ku soo dari doono hadii leeraa kabaab leeraa iyo hot dog iyo burgerkii hadii leeraa marka intaan wad arki doontaan marka barnaamijka ganacsigeenan alxamdulillah ilaahay noo barakeeyay Hargeysana waa wadankeeni Somaliland wadankeena aaminana way tahay shaqana way taalaa dadkan ka taariibayna way iska leeyihiin shaqa ma taalo ma garatay marka shaqadu way taalaa halkan waa la sameyn karayaa shaqa abuurkan anagu waan ka qayb qaadanay intaasoo shaqaalaha noo joogay ilaa 7 shaqaalaha nahay qaybo kale oo furayna hadii la leeraa marka waan ka qayb gelinaa in shaqaaleysiinta shaqa abuurka wadanka Somaliland kasokow ganacsiyada kala duwan ee Somaliland laga hirgelin karayo wax jira intaas oo fursado ganacsi maxaa ku doorbideen ganacsigan shawarmaha iyo noocan oo kale sameeysan waxaan ugu doorbidnay magaalada Hargeysa maanta wadankeena wuxuu u baahan yahay hodheelo casri ah iminka hodheelada waaweyn oo aragteen sida uu shaqeynaya laakiin halkan waa fast food cuntooyinka degdega weeyaan shawarmada kamid tahay falafel kamid yahay chips kamid yahay digaag kumbriid kamid yahay hot dog kamid yahay kabaab iyo burgerkii marka ganacsiyada nimanka wadankeeda waxay u noqonaysaa horumarinta wadanka waa tahay inta badan waxa la yiraahdaa cuntooyinka caynkaas oo kala marka la sameeyo qiimaha u sareeya ku sameeysan dhinaca qiimaha ma isku dadan iyaga lafti dhinaca qiimaha laftarkiisa waan laba jeer ma dib u eegnay marka iminka baagiyo kala ka soo qaad meelo qaar ku shirmisiyaan annagu 600 baan siinaa xabada midha yar marka cuntooyinka kalena qiimihiina aad u jibinay qiimo jaban dad si dadku u iibsan karayaan shawarmada kale hal iyo bad ayanu siinaa saxankeedu $4 xabada digaaga $8 baanu siinaa sharaabku waa 0.75 5 shilin sandwichka falafelku waa 5 saxanka falafelku ee kabaabka isaguna waa $2 marka kabaabka waxa loo iibsadaa midhaha markii 3 shilin tahay waa 6 mid markii $1 tahay 12 mid baan siinaa wax ka badanna cidii dalbatana waa ugu dareena kasokow ganacsigeena qiimaha saa u jaban yahay casuumadahoo kale miyaa iyaga laftooda ay jiraan waxyaabo aad ugu tala gasheen casuumadaha iyo cuntooyin gaar oo haddii la idinka soo dalbado kale dhinaca casuumadaha maxaa iyaga laftooda idinka milay dhinaca casuumadaha waxaa jira horta kabaabka soo midhay u dalbadaan dadku saxanana way dalbadaan markaa saxanada kuwan birtaa ma saarnay laakiin kuwa cadcad oo safaariya aan ugu xidhnaa marka gaari baa noo shaqeeya casuumadaha kale delivery qof telefoonada oo hayaan noo soo hadlaya intaas oo baahanay ma noo sheegay intii
waanu diyaarinayna waanu qaadayna gaari waanu qaadayna bartiisaasaan ugu geynayna lacagta marka soo qaadana waan soo noqonayna qaybta delivery way ee jirta xafiisyadoo kale guryahoo kale shirkadahoo kale casuumadaha ku soo noqdo aroosyada bixinta casuumadaha kale jaamacadaha iskuullada xataa laftarkooda nusu saacaha way soo doontaanoo way nala soo hadlaan intaasoo sandwich noo sameeya bay yidhahdeen oo kolba konton sandwich adii ka badantahay discount baan u samaynaa seminaarada hay-adaha intaba qiimo dhimis baan u samaynaa kolba wixii dalbadaan wixii badan wixii 10 ka badan qiimo dhimis waan ka jibinaa amba 15 maxtaada kaba soo qaad 15 sandwich oo baagiya oo kabaabkaasa 20 mid buu dalbaday 4 mid baa laga diinaya 16 mid baa la xisaabinaya taasoo kale qiimo dhimis ayaan sameynay watahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii ganacsiga oo aynu haatan bartankiisa marayno maxay qorshayaashiinu qorshayaal fog iyo dhow way jiraan qorshaha dhow waxa weeye cuntada kale aan ku soo darayno waa bisha gudaheed haddii alla yidhaa waxaan ku soo daray kabaabkii iyo hotdog iyo burgerkii iyo waxyaabo kale oo la shiilo mashaawi la yidhaa oo carabtu samayso meeshana waan kordhinaynaa intaa ay ku fadhido oo la kordhinayaa qorshaha fogna haddii la qaybo kale oo magaalada Hargeysa halkan oo kaliya tan maaha garoonka Timcada agtiisa maaha jijiyeer oo ka furi karnaa xaafado kale suuq leh suuqa bacadlaha qayb baan doonaa ka furno qaybo kale doonaa furno marka dhowr meelood aan doonaa ka sameeyno ilaa 5 meelood haddii alla ilaahay nooga qabto haddii la maxaad kaga duwan tihiin waxa jira goobo kale iyaga laftooda lagu sameeyo cuntooyinkan oo kale maxaa kaga duwan tihiin idinku oo aad oran karaysin anagu waxaanu dheernahay arinta caynkaas qolooyinka kala sameeya anagu horta waxaanu dheernahay waa dhadhanka meesha waxa ku xiga nadaafadda meesha serviceka dadka sida loo soo dhaweynayo ma garatay marka aanu dhadhanka waa wax sir ah oo dheeladu ma sheegaan badanka kaftiiriyo marka waxa ku darana waa dhadhankayaga sidoo waa dhadhanka iyo hore todobadeeda camal ma lahayn fikradan baan la iman waxaan dibadda waxyaabo badan baan soo aragnay ganacsiyo badan ganacsiga ugu dhow aan sameyn karaynaa oo aan shaqo ku aqoontiisii leenay aan shaqo ku sameysan karaynaa waa kii waan eegnay daraasad baan ka sameynay shawarmadaas ma timi shawarmadii ayaan ka shaqeynaa waan sameynaa hawshii waan galnay meeshan dib u dhis baan ku sameynay marka shaqo abuurka xagga laga sugi lahaa dawladda oo shaqo abuur ma sameyso dadku laftarkooda oo iyagu isku tala galaano fikrad la yimaadaan ay shaqo abuur ku sameystaan si dad kale la isku taakuleeyo lagu tiirsan ima qofka tahriibiya waxa ku baxaya imka jawooyin baa loo iibiyay guriga loo iibiyay $10,000 $20,000 marka hadda $2,000 maharad yarood ku furan karaysa shaqaad ku sameysan karaysa imika maharadeenan aduu lacag 10,000 badhe 10,000 baa ku baxay 10,000 halka qof ku tahriibi lahaa lacag loo dirdiri lahaa oo badaha u mari lahaa waxa la qaatay 10,000 inaad maharad ku furatid أو جناس كوسمة شقة كوسمة أنت نوشة خطر قل هذا بضيو صحراء أدمر لهذا أما يورو تلفت كده حمي يلان قحون تبت جلسة أنت أصلا الحين بناني سبع صبور حبرشوا طبعا صار دي بوش العيسى مرجع تهريبته النف ملا تهريبته واحد في هذا اللي ما قرميه ودن كينن ونعويت الله شقة ويت الله ضد كان في سنين ضد كنا ضد كي يجلس كان بتري قارن يجلس كان بتري قارن ده موجة خدك ما فهمسنا marka wadamada qaar imika khaliijka oo kale saxarwaha wax ma haysan shidaal bi yeesheen wadankoodii hormariyeen wax walba way galiyeen marka wadankeenu wax walba way yaalaan nimca way taala marka wax warwar ma jeey taariikhuna naf male wallahi aanu fariintan u faray waxa weeye wadanka hala aamin horta taariikhana la iska daayo wadanka shaqo way taala nin walba kartidiisa maskaxdiisa marka waa inaad ku fakirtaa si aad shaqo u abuur lahayd wadankaaga fariintaas aan u farayaa dhalinyartan taariikhsan waxa ku leeyahay taariikhda naf male taariikhka iska daaya wadanka shaqo way taala nimcana oo fadhaa wadankana hala aamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحنا محمد عبد الله محمد وحنا قرب جوجتي عربت كنا ولد إما كان هرجيسان جوجا وحنا كمان قناة دلك حقا إلا 5 سنة إما كان لا 3 months أيام جوجا مكا هرت دلك
shantaas sano aan maqnaa horta isbedel weyn baa ka dhacay dalka hadday noqoto xagga dhismayaasha hadday noqoto xagga wadooyinka hadday noqoto even حتى يعني waxa ugu yar برجي ورد هرجسل قمار كشني بت يعني تكاسي صوته أو حلي أدوني سد بعد هلي سد إما ما شاء الله ملبو يتاجين حلي أدون التليفون بتقدر بكرتا وحيالها كلي أن وحكي شيء كرنا وحكم ذا for example حاجة عنتذا حتى عنتين بدنو أنا دتك إنه هرو أقون أي مكبرتين وحكم ذا الدجاجة وحكم ذا الشاورما وحكم ذا كبابك marka maanta waxaan joognaa meherad reem shawarma oo aan customer u ahay maalin walba yani waan imaadaa waan ka cunaa sababtuna waxay tahay cuntooyinkii xagga aan qurbaa ku cuni jirnay ayaa imika dalka laga helaa oo dadkeenu ay barteen oo aad ay u cunaan oo berigi hore markaan uga sheekayno waxaan cunaa dadku little bit laakiin imika dadkii baa bartay same waa cuntada xagga lagu cuno ayaa lagu cunaa ninkii xagga ku sameeyay shawarmaha ayaa la keeno imika Soomaaliland ku sameeyay cuntada marka waxa weeye waxyaalaha horumarka uu dalku gaaray taas oo dhan rag baa ka dambeeyay argaana aad baan ugu mahadinaynaa ya بالمكان أو بقضي أنقل بحنا بين الله ماذا بري هوري مامادي بري هوري ماذا بري هوري مامادي بري هوري وحاب الفتى ديال كنت بروا قلا بدي بري حول نون بهي معدن يوكلون ما تتخيلات كيال وحبوب بحي ربان ماذا بري هوري مامادي بري هوري ماذا بري هوري مامادي بري هوري وحاب الفتى ديال كنت بروا قلا بدي بري حول نون بهي معدن يوكلون ما تتخيلات كيال وحبوب بحي ربان ولا لها الغبير هذا لعك بقي لا أوتار بنانك هذا رجله حبيبة الروح ولا لها الغبير هذا لعك بقي لا أوتار بنانك هذا رجله حبيبة الروح يا قوم على بخري وحصار بني وفتر بني لسان فصار الشوش الجبل يريد بعده سقط سيتفكك عن غصان نهارو بري هروب وغوث سميل هارو كما ويت باين يا قوم على بخري وحصار بني وفتر بني لسان فصار الشوش الجبل يريد بعده سقط سيتفكك عن غصان نهارو بري هروب وغوث سميل هارو كما ويت باين intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenii ganacsiga iyo dhaqaalaha Baldugo,